kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka caawa iyo caweyska ee magaalada Wardheer. Haddaba sidee looga cawiyaa habeenkii magaalada Wardheer? Waxaan la kulanay qaar ka mid ah dhalinyarada iyo ganacsatada magaalada si aan u ogaano una soo bandhigno habka looga cawiyo magaalada Wardheer. dhalinyarada oo aragtidooda ka dhiibtay caweyska magaalada ayaa sheegay inuu isbedelkii deegaanka iyo dalkaba ka dhacay sababay in dad badan dib ugu soo laabtaan magaalada isla markaana helaan fursado ay ku shaqaysan karaan sidoo kalena magaalada ku yimid kobac ganacsi iyo mid bulsho. niyo horta si guud magaaladani waa magaalo qadiimi ah oo in badan soo jirto magaalada Soomaaliyeed magaalooyinka ugu da'da weyn bay kamid tahay. xilliyo badan oo ay soo mareen way jirtaa oo isbedelay oo marba ay nooc ahayd. laakiin maantadan aan taaganahay waa magaalooyinka sida fiican uga faa'iideystay isbedelkii. isbedelkii kadib magaaladani waxaad moodaa shacabkii hore ee dawladihii hore iyo xilligii hore qaxay inay dib ugu soo laabteen oo ay magaaleeyeen bad moodaa. population-keeduna aad u koray. si guud marka 6 sano oo u dambeysay magaaladani dadku way isugu yimaadeen oo dib bay u soo laabteen. marka hadda dadka adeegtid shacabka qaabkii u caweeyaan niyo waxaa jira meelo badan iyo ganacsi badan oo soo kordhay intii isbedelka bacdigiisa ahayd. waxaa ka mid ah meeladahan oo kale oo la isugu yimaado oo si aad la isugu yimaado bay ka mid tahay meeladan hadda aan joogno ee friendship oo waxyaalihii ganacsiga dhalinyaradii xilliga hore ka baxay deegaanka ee soo laabtay ay dib u maalgeliyeen weeyaan. si guud marka caweyskeedu waxyaalo badan oo ku salaysan yahay baa jira oo dhalinyarada iyo odayaasha iyo maaragtay qaab kala duwan bay u kala maaragtay caweeyaan. iyadoo maaragtay ay awoodda siinayso furfurnaanta siyaasadeed ee hadda jira. dhalinyaradii awal hore meel isugu timaada oo maaragtay wax isla falanqayn ka dhacay ma jirna awal oo de 2 ama 3 dhalinyaro hadday timaada way adkeyd si ay isugu yimaadaan. mararka qaar hadda waxaad arkaysaa meelo kontumeeyo dhalinyaro 70 dhalinyaro ay isugu imaanayaan oo maaragtay ay sheekaysanayaan hawlahooda guud. marka si guud caweyskeeda waxaan dhihi karnaa magaaladani waa magaalooyinka isbedelkii ka bacdi aad uga faa'iideystay weeyaan ma dhihi karnaa. niyo horta dhalinyaradu ayagu waa iska qorshe badan yihiin oo hadda raggu dhalinyarada ay sportiga horta aad u xiiseeyaan. inta badan dhalinyaro badan oo sports iska wareysanaya arkaysaa. laakiin anagu ka Wardheer ahaan iyo ka population ahaan wixii ugu badnaay asbuucan la hadalhayay wadadii un bay ahayd. wadadii laamiga ahayd bay ahayd oo maadaama hore aanan u lahayn haddana aynu soo gaartay oo magaalada dhexdeeda laga bilaabi doono saameynta ka dhalan kara iyo doodahaas ayaa asbuucan haystay magaaladan. والله ما شاء الله الحمد لله aad bay magaranaysaa caweyskeedu hadda uu fiican yahay. hadda insha Allah hadda soo noqday dhaqdhaqaaqeedii magaranaysaa adigu caweyska aad buu fiican yahay. kulli waqti adag waan soo maray laakiin alxamdulillah hadda aad bay magaranaysaa u soo kabanaysaa magaaladu 6 sano kor cid ya caweyn jiray 6 sano kor magaranaysaa xilli caweyso ma jirne magaranaysaa sheegay hadda laakiin dadkii maadaama dhalinyartii xilligan ka soo dad badan waxaa jira de magaranaysaa ay wajin caweysa laakiin anagu hadda say tahay barigaas hadda say tahay aad bay u kala duwan tahay. hadda 100% hadda nabadgelyo la haystaa magaranaysaa aad bay u fiican tahay magaranaysaa xagga bahalkii dadku waa saddex galay. marka alxamdulillah kulay dhalinyarta kulay qayb waxay ku haashaa moogtahay afkaar qaar ciyaar ka sheekaysta qaar ma garanaysaa shaqooyinkooda ka sheekaysta qaar ma garanaysaa hawaasi ma garanaysaa dhalinyartu ay qayb baan wax isku weydiiyaa afkaartooda kala gedisan tahay. qaar bay game ciyaar hadda xaggan oo kale dhalinyartu inta bay game ciyaartaa laakiin hadda anagu aan kaga soo qaato kan anagu kale anagu hadda dhalinyartana isku xidhan de kulay anagu ciyaarana ma daawano waxaan anagu ma waxayno qaab shaqeedkana oo ma garanaysaa qofku soo hami u gaari lahaa uma anagu ka sheekaysanaa. marka anagu saamaan yani team baa kale loo kala fadhiyo teamkana anagu xaggaas aan ku mashquulsanahay. kulay magaalada Wardheer waad arkaysaan sida looga caweeyo meeradan friendship oo ah meelaha ugu badan oo magaalada lagu caweeyo oo dhalinyarada iyo dadka shacabka oo ay fariistaan oo isugu yimaadaan. waad aragtaan qaabka mataqaana loo fadhiyo sida loo caweynayo dhalinyarada soo sheekaysanayso. marka si qurux badan oo looga caweeyaa. kulay hadda waqtigan la joogo xalaha ugu badan oo dadku ay hadal hayaan ama mataqaana dadku ay ma indhaha ku hayaan waxa weeyaan waa wadada laamiga ah oo mataqaana waxa weeye magaalada dhex maraysa oo dadku runtii ay xiiso fara badan u qabaan. ayaa dadka intii meel wada fadhidaba ay isweydiinayaan
wadadaasi mataqaanaa qaabka ay noqonayso iyo sidii magaalada u marayso iyo markay marto magaalada laftigeeda sawirka magaaladu yeelan doonto ayaa dadku aad isu weydiinayaan iyo sidoo kale waqti ay qaadan karto ayaa la is weydiinaya meheradan kolley waa meherad sidaad aragtid meherad standard ah weeye oo meheradaha magaalada ugu weyn ayay ka mid tahay weliba meherada ugu weyn wey magaalada Wareer marka la fiiriyo dhinaca adeeg bixinta marka la yiraahdo waxyaalaha marka meherada laga helo kolley cuntooyinka nooc kasta oo dadku ay isticmaalaan Soomaalidu iyo Etoobiyaanka waa laga helaa weliba hadda waxaan ku soo korinay labadii bilood u dambeysay cuntooyinka wadaniga ahaa ayaan ku soo korinay meherada hore u lahayn sidoo kale bilihii u dambeeyay waxaan soo korinay cuntooyinkii saldaatooyinka iyo fatiiradaha waxyaalahaas oo aysan mataqaanaa meheradu aysan hore u lahayn sidoo kale hadda waan soo korinay marka kolley baahi badan oo dadku ay qabeen oo ay u qabeen dhinaca mataqaanaa cuntooyinka maaragtay waxa weeye waa hadda waxaan dareemaynaa inaan ka qabtiray dhalinyarada oo bogaadisay amniga iyo horumarka ay dawladdu ka taabagelisay magaalada Wardheer ayaa sheegay in dhalinyaradu si xor ah u kulmaan aragtiyoodana isku dhaafsadaan taasina ay lafdhabar u tahay amniga iyo xorriyadda hadalka niyo horta magaalada Wardheer inta badan waa magaalo xadaariya oo maalmahan dambe waxa weeye populationkeedu sii badanayo businesskeeda iyo mashquulkeeduna maalinkii aad u badan yahay habeenkii markii la yiraahdana dadku waa dad jecel oo waa soo imaadaa waxyaalo badan oo kala duwan baa laga sheekaystaa maadaama waxyaalo badan oo maaragtay bulshada kulmiye ay jiraan yacni sida dhaqanka xoolaha oo kale aad baa la iskaga wareystaa waxa kaloo la iska wareystaa inta badan siyaasadda dhalinyartu waxbay ka falanqaysaa ciyaaraha wax badan oo kala duwan bay iska wareystaan waana dhalinyar inta badan dadku dhalinyartu habeenkii isu wada yimaada magaalada oo aad waxa weeye waxay leedahay dad wada cooperation ee wada shaqayn leh oo xaafadooda dhan way isu wada tagaan marka cawayskeedu waa caways aad u wanaagsan weeye oo runtii soo jiidasho fiican leh waxa weeye dadkuna aad moodaysid inay civilizationka iyo horumarka ay ka wada sheekaystaan waxyaalaha hadda ka wada sheekaysta waxaa ka mid ah technology-ga sii koraya iyo maxaan ku dhahaa inay ay noqdaan dad ku dayda caalamka teknolojiyadda ka socota inay ku daydaan ayay aad u jecel yihiin waxaana weeye barnaamijyo badan oo ka dhex guuxaya laftiisu waxbarashadoo kale yacni kor u qaadisteeda waa waxyaalaha ay ku caweeyaan oo iska wareystaan bay ka mid tahay aaminada qaar waxaad ka maqashaa nabadgelyadoo kale waa waxa ugu weyn hadda waxa weeye ku naaloonayaan oo ay macnaha isdhexgalkii bulshada nabadgelyada dhacday waxyaalaha maaragtay aadka ugu xiisaynayaan ayay ka mid tahay 6 sano ee lasoo dhaafay isbeddelku intuu yimid runtii deganaansho ballaaran ayuu guud ahaanba deegaanka ka dhacay gaar ahaana gobolka Doolo oo ahaa meel aad dhibaatooyin badan ay ka jireen hadda waxay noqdeen 6 sano waxay noqdeen meel aad stabilization aad u degan yacni xorriyadda kow ka ah ma jirin qof intuu yimaado cabira waxa la dhaho dareenkiisa shakhsiyadan cabira ama waxaad ku taana waxa ku cadeynaya markay dhalinyartu habeenka isku nimaano dawladda la falanqeyn hebel baa xun baa la oran hebel baa fiican baa la oran yacni waxaa jira yacni in laga sheekeeyo wacyiga jira saxda ah waa wacyiga jira saxda waayo qofka feelingkiisa gudaha banaanku keenaa idminis taas waxay ka qayb qaadanaysaa qofku inuu yahay waxa jira meesha ka jira soo marka waxaa laga faa'iiday kow xorriyadda kow ka ah ganacsiga oo ballaartay yacni meel walba dad baa ka imaanaya businesskii baa isu furmay ganacsatadii baa isu wada shaqayn leh yacni wax badan oo ballaaran oo nolosha bini'aadamka saameyn weyn ku lahaa ayaa wuxuu noqday waxa ugu ballaaran laga faa'iiday waana wixii loo baahnaa weeye yacni wixii 6 sano ka hor aan jirin yacni ay ka mid yihiin kuwaas waayo qofku inuu xorriyaddu waxa adduunka loo dhigo ma jiraan wax loo dhigo ma jiraan yacni aad baanan macnaha 6 sano kulliba aan u aragnay inay tahay 6 sano oo opportunity weyn oo deegaanka soo maray yacni fursadihii ugu qaalisanaa baa soo maray ma oran karaa ilaa haddana waxaan rajaynayaa inay kasii faa'iidaysan doonaan kolley isbeddel barakaysan buu ahaa magaalada Wareer cawayskeedu aad buu u wanaagsan yahay
nabad iyo horumar iyo barwaaqo ku astaysan yahay waxyaalaha isbedelka oo aad hada Wardheer loogu amaanay waxa kamid ah inaad fiidka helaysid wax kasta aad uga baahan tahay magaalada haday tahay caanihi dhayda ahaa haday tahay mataqaanaa gaarigii meeshaad u baahan tahay haday tahay waxaad mataqaanaa waxa weeye adeeg kasta aad u baahan tahay wakiil kasta lacagta kala bixi kartid adeeg kasta aad uga baahan tahay waad helaysaa adoo sidaas ku helaya si nabad ah xasiloon sidaasna waxaan oran karaa waa mahad Ilaahay iyo mahad u sugnaatay dadka hawsha ku shaqeeya waa maamulka ugu horeeyo madaxweynaha ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka ugu horeeyo nabadgelyada ugu horeyso waxaan oran karaa marka Wardheer isbedelka ka muuqda waa habeen iyo maalin waxay soo martay iyo waxay hadda ku jirto ilaa habeenkii nin walba nafsadiisa bari meesha u shaqo tagi lahaa dantiisa waxyaalaha uu nafsadiisa maanta ku horumarin lahaa hadda xilligan iyo xilli kadis dambe waxa uu soo jeediyay anigu dantii iyo shaqada iyo camalkayga hadda shaqadeeduna baashaan ku astaysanta marka insha Allah waxaan rajeynayaa nin walba xamaarigiisa inuu aroortii u kala hidoono iyo shaqadiisa inuu kala hidoono nabadii barwaaqo lagu aweenay alxamdulillah roobka noo daay caani dhayda ahaa xilli walba aad baahato helaysaa inta dhaqameedkii wadanka gudihiisa waxa ka soo go'ay qof kasta iyo tabiciisa iyo deeyo mataqaanaa wuxuu aroortii u xamaali tago wuu helayaa marka waxay ka faa'iiday aqoon xirfad nabadgelyo sida ay rabaan habeenkii inay u socdaan xilliga rabtay Wardheer waa soconaysaa laakiin marka hore waxaa jiray hurdo la'aan waxa la isku dhaho saxan waaba lagu qori jiray hadii xogaa yar lagu arko adoo dantada daarta ka shaqeynaya saxan waaba lagu qori jiray xabsi iyo balaayi mushkilad baa jirtay wuu garanayaa in nin walba Wardheer Soomaaliya uu garanaya marka habeen iyo maalin baa u dhaxeeya farqa u dhaxeeya waa habeen iyo maalin oo kale ma ku cabiri karaa markaan ka hadlo caweyska kulli xilliga hore iyo hadda waxyaabo badan baa magaranaysaa isbedelay oo magaranaysaa magaaladan hadda sidii hore isbedel badan baa ka muuqda intii hadda isbedel ku yimaaday magaalooyin fara badan iyo magaranaysaa ilaalintii soo bartay dadkii oo magaranaysaa Soomaaliya meelaha kala aado jiray oo ku soo batay waxyaabo badan baa magaranaysaa socodkii bulshada iyo dhan walba baa jira marka waxaan leeyahay xilliga hore iyo hadda kulli farq weyn baa u dhaxay baan leeyahay oo aad magaalada isku bedeshay waayo dadkii ka maqnaa magaranaysaa meelaha kala jiray iyo ganacsigii magaranaysaa xidhnaa magaranaysaa iskayra yaa sii balaadhay magaranaysaa hadda magaranaysaa aad u sii balaadhay wallahi xilligii isbedelkii hadda farq weyn baa u dhaxay waayo dadkii hadda wax badan bay fahmeen ganacsigii baa la fahmay shaqadii baa la fahmay waxyaabo badan oo soo kordhay baa jira laakiin intii isbedelka horeysay waxaan baa jiray dadyo fara badan oo maqnaa oo yimaada baa jira ganacsiyo fara badan baa soo biiray magaaladii mustaqbalka iyo waxyaabo badan iyo qorshayaal badan soo biiray baa jiray marka waxyaabo badan oo isbedel oo fara badan baa yimaaday dhalinyaradu faa'iido badan bay kala kulantay isboortiga dhanka walba dhanka shaqo abuurka hadday noqoto dhan magaranaysaa wax walba oo noqoto haddii dhankan magaranaysaa TV-ka waxbarashada ay noqoto dhigeedii waxyaabo badan bay kala kulmaan oo magaranaysaa soo kordhay oo dadka hadda waxbarashadii hadda la sii fahmayo aad ba hadda xagga waxbarashada magaranaysaa lagu dadaalaa walka horena loo chance looma haynin oo looma xusuusnayn oo waayo inta badan TV-ka maba oo magaranaysaa uu shaqeyn jiray inta hadda isbedel ku dhacay buu shaqeeyay fiildiyo fara badan oo dhalinyaradu magaranaysaa ay aad u barteen oo bulshada iyo magaranaysaa wax ka bedelayna waa lagu soo kordhiyo magaranaysaa aadan bogaadinayn yaa lagu soo kordhiyay sida animal health oo kale waterka oo kale tan leerka tan magaranaysaa fitnessrada waxyaabo fara badan oo lagu soo kordhiyay baa jira marka aad baan ugu bogaadinaynaa magaranaysaa